السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركله هي كلن كأسلوب ومركاسي كلن تضبط الله إسلا مركاسي عن كسو قادنا موضوعية كلا دوان كواسو مركاسي بلشدة مهمة عنقو مانتنا كلن كأن كسو قادن دونه قضبي كلو مركاسي عصب إسلا مركاسي عن جعلناها إنان أمد الصومالية دال كان سويدن إنان مركاسي وقفا إيدينو مقتار سكسو نقد ونكسن مقتار سيدا دوكتاهي تضبط كان كل وحيابه عصب أيا قدقان سويدن كدعي qodobada markaasi ugu muhiimsanaa isla markaasi hadalhayntoodan ugu badneed maxay ahayd aad baa maasanta ala asluub runtii qodobo badan oo muhiim ayaa dhacay oo quseeya maaragtay si gaar ah dadka islaamka ah iyo Soomaalida oo islaamka qayb weyn ka ah dalkan Sweden hadii hal iyo laba ka soo qaadano waxay dhacday ka dhacday shalayto magaalada Malmo caasimada saddexaad ee dalka Sweden oo runtii arin aad u xasaasi ah ka dhacday kadib markii mid kamid ah dadka xaq jirka ah ka yimid dalka Denmark waliba ah nin hogaamiye ahaan jiray oo xisbi maaragtay lagu tiriyo xisbiyadan xagga hore ka joogo maaragtay midtidiinta midigta fog uu isku dayay asagoo sharci u haysan inuu kutubka Quraanka Kariimka ah uu ku gubo xaafad la yiraahdo Rosengård oo ah xaafada ajnabi ugu badan ee degan yihiin magaalada Malmo waliba Soomaalida ugu badan ay degan tahay sidoo kalena meel iyadana la Sturatoria oo ku taalo isla Malmo ayaa sidoo kale dad ay ku maaragtay tuureen kutub oo areysan ayagana oo maaragtay midtidiinta kamid ah dadka midigta fog loo yaqaan ama cunsuriyiinta ah u naqaan marka arintaas ayaa waxay dhalisay soo bax balaaran ay sameeyaan dad arinta ka falcelinaya oo muslimiin ah oo magaalada degan runtii waxa ay gaartay heer ay soo buuxo oo rabshado isu bedelo oo booliiska ay maaragtay soo farageliyaan inkastoo dad badan oo wanaag doonayaal ah ay arintaas si door la ka qaateen sida media ay warbaahinta ka aragnay oo isxilqaamayo imaamyada masaajid ay ku jiraan wax garadka maaragtay oo ay isku dayn xaalad ay dajiyaan runtii hadda xaaladdu way degan tahay maanta inkastoo waxyaabo tirtir ay dhaceen sidoo kale arintaas waxay kamid ahayd arin aad muhiim ah noo taabanayso علي waxa xasuusin mudan ninka hadda isku dayay oo Islam loo yaqaan asaga ma haysto wax ruqsad ah ogolaasho ma haysto asaga laakiin waxa ogolaasho dalbaday nin kale oo isagana maaragtay siyaasi aha oo isna Denmark u dhashay oo isna maaragtay rabay inuu qaato ruqsad ama ogolaansho oo banaan ku gubi karto waa loo diiday marka hore waa loo ogolaaday kadib laakiin waa la diiday kan laakiin si sharci darro ayuu sameeyay inta ugu gudbina qodobka kale aan rabina cali oo dadka yar xasuusiyo waxa waaye waxaan ugu soo badanaysa maaragtay iyaan criminaliteedka ama waxa loo yaqaan dhalinyarada maaragtay isugaarsatay ee criminalka ama arimaha maaragtay dambiyada la xiriiray borobaha taas aan ugu soo badanaysay marmarka dambe sa ogtaa marka dhalinyaro badan ayaa hadda Sweden dhibaato soo geysatay Stockholm maaragtay dhacdooyin badan ka dhaceen ugu bishii ama laba bil soo dhaafayay in ka badan ama in ku dhow tobaneey aan dhahay dhalinyaro ah way saameysay arintaas oo ama dhaawac ama dhimasho soo jiro kii ugu dambeeyay husbiyo ka dhacay way goore isla isbuucana waxa la xukumay dhalinyaro kale oo ayagana halkaas Stockholm ka tageen oo Denmark dhibaato maartay isugu geysteen oo ayagana qaarkood xabsida lagu xukumay marka dhacdooyinkaasna aad loo hadal hayaa waxa kale oo ayadana jirto oo arimaha maaragtay xagga suuqa shaqada iyo ku cusub aan loo afnaagta la yiraahdo saataqan xisbiga Centre Party oo ah xisbiyada heshiiska kula jira dawladda dhexe dalka Sweden mucaaradka laakiin dhinaca mucaaradka taagan xagga maaragtay wada shaqeynta markay timaado miisaaniyadda iyo baarlamaanka aqlabiyadiisa ka wada shaqeeyaan dawladda oo ay hogaamiyaan xisbiga Liberal Party iyo xisbiga Soomaaliyeedka ay kaabaan ayada iyo xisbiga Liberaalka ayaa ku soo laabatay muddo dheer oo ay fasax waalidnimo ku maqneed ee caruur ay guriga ku haystay shal markay soo noqonaysay waxay la soo noqotay arin aad u xiiso badan oo ay tiri waxaan rabnaa in aan isbedel ku sameeyno dadka dhalinyarada ah la shaqaaleysiinay maadaama dhalinyarada ay suuqa shaqada ku adag tahay in aan kan inaan yarayno waxa loo yaqaan albasiibar of 50 oo dadka shaqo bixiyaasha laga qaado ama dadka shaqaaleynaya lacagta cashuurta in boqolkiiba ku tan dhino ay rabnaa dadka dhalinyarada ah oo ilaa 24 jirka ah si qofka marka uu soo dhalinyaro oo suuqa shaqada soo galo oo dhaqsi maaragtay shaqo u helo hawa dhalinyarada aad ugu adag shaqo inay helaan dadka waaweyn oo muddo 30 sano 40 sano ka shaqeynaya meesha ilaa ay beeshin ka galaan qof dhalinyarada boos soo galo adagta marka si loo dhiirigeliyo dhalinyarada ayay waxay waxaan rabnaa inaan uga faa'iideysano in aan maaragtay dhalinyarada aan ka joojino lacagta oo marka ugu horeysa la shaqaaleysiinayo ama haaf uga dhigno
saasay soo jeedisay waana arrin hore u jiri jirtay xilligii dowladdii alliance loo yaqiinay oo dowladdan hadda ka horreysay ay ka talinaysay dalkan ayay jiri jirtay marka arrinta aad u xiiso badan waaye iyadana waa la hadalhayaa waxaan rabtaa in looga faa'iidaysto xilli lagu jiro hadda wada hadalkii miisaaniyadda dayrta oo bilaaban rabta hadda xilli dheereedkan hadda aan gelayno ayaa waxaa laga hadlayaa arrimaha la xiriira miisaaniyadda dalka aad ayaan arrintaas xiiso u leedahay iyadana waa qodob kale hadda aad loo hadalhayo LO ama maaragtay ururka shaqaalaha iyo iskaashatooyinka ayaa hadda wada hadallo ku jiraan iyo maaragtay dhaqdhaqaaqyada ganacsiga maaragtay sida gaarka loo leeyahay dalada ay ku midaysan yihiin waxaasoo dhan hadda wada hadallo ku jiraan si miisaaniyadda ay saameyn ugu yeeshaan marka waxaa la wada dhowrayaa miisaaniyaddii ugu horreysay xilligii maaragtay caabuqan maaragtay loo yaqaan coronavirus uu yimid kadib oo dalku uu aad hoos ugu dhacay oo dhaqaalihii uu saameeyay marka soo kabashadii ayaa la rabaa in la gaaro marka sida loo gaari lahaa waa in la haystaa miisaaniyad aad iyo aad looga taxadiray oo dowladdu ay maaragtay kaalmo iyo garab istaag ay siisay dhaqdhaqaaqyada ganacsiga warshadleyda shaqaalaha iyo dhinacyada caafimaadka iyo bulshada saasoo indhaha loogu wada hayaa marka miisaaniyaddan aad ay u xiiso badan tahay mukhtaar waad mahadsan tahay kulley waxay ahaayeen dhacdooyin markaasi aad u xiiso leh isla markaasina ay muhiim ay tahay inay dadka Soomaaliyeed markaasi ku nool dalkan Sweden ay wax ka ogaadaan maadaama aan nahay markaasi ummad ku nool dalkan Sweden mukhtaar waxa jira qodob inta badan aad iyo aad u soo noqday isla markaasina dadku ay maaragtay u baahan yihiin in macnaha sharaxaad dheeri ay ka helaan isla markaasina fahmaan qaabka ay markaasi u shaqeeyaan qodobkaasi waa oo kaasada haddii aan ku weydiiyo horta waa maxay oo kaasa say dadku u fahmaan iyo waxyaabaha ay qabato iyo waxyaabaha markaasi laga heli karo waa maxay oo kaasa waa maasanta Alice oo kaasa marka laga hadlayo dadka intooda badan horta ma fahamsana kaliya inay magac ka yaqaanaan hase ahaatee hadaa macnayno oo kaasa waxa waaye arbis loo sees kaasan wax la dhaho dadka shaqo la'aanta ah sanduuqa dadka shaqo la'aanta ah laga caawiyo okay hadaba yaa bixiya marka dhaqaalaheeda oo dadkaas lacagta siiya waxay ka timaadaa dadka laftirkooda ayaa waxay sameysaan isu tagyo ama iskaashatooyin oo ay ku midaysan yihiin marka ay shaqeynayaan oo ay bixinayaan lacag la dhaho membership of youth ama xubinnimada xubinay ka noqonayaan xubinka lacag ay bixinayaan lacagtaas ayaa marka intay shaqeynayaan ay bixinayaan hadhow marka ay shaqada ka dhamaato waxay qaadanayaan lacag u dhiganto lacagta ay shaqeynayaan 80% ka mid iyadoo hoos u dhigayso ilaa 75 gaarayso marka qaarkood way kala duwan yihiin oo kaasooyinka sidii ku timaadaa marka oo kaasada waxay ku timaadaa hadba maaragtay iskaashatadii markaas abuuranta tusaale ahaan hadda qofka hadduu ka shaqeeyo kommunada iyo waxaan loo yaqaan communal lancing waxa loo yaqaan oo kale haddii degmooyinka ama gobolada kale iskaashato gooniye leeyihiin haddii la fiiriyo gaadiidka transport oo kaas ku leeyahay jiraan gaadiidleyda waxaa iskaashatada gaadiidleyda ay leeyihiin qaybta local board waa leeyihiin kulli absolutely mid walba wuxuu leeyahay soo tagiyo ama iskaashatooyin ay leeyihiin marka iskaashatooyinkaas oo branch walba quseeyo ayaa waxay leeyihiin sanduuq dhaqaale oo lacag lagu ururiyo lacagtaas oo ka timaada dadka xubinnimada ku bixinaya si birtooda qof kamida haddii ay ku dhacdo shaqo la'aan loo siiyo lacag oo lagu garab istaago marka taas warto oo kaasada waxa la dhaho marka isbedelaa jiray marka oo kaasada maadaama dad badan fashal lagu sameeyay ama shaqo keenid lagu sameeyay arrimihii oo corona la xiriir dadka culays badan ayaa fuulay oo kaasada ama ina qaadi karin dadkii ku bastay darteed darteed marka waxaa soo gashay oo dowladda tiri marka anaga inaan doorkeena qaadano waay si dhaqaalahana loo ilaaliyo dadka noloshoodana loo ilaaliyo marka waxay sameysay dowladda 3 bilood ugu horeysa qofka marka oo kaas hore ka galo waxaa loo dirayay xafiiska caymiska qaranka xafiiska caymiska qaranka ayaana wakiil uga ah dowladda dhexe xagga kaalmada arrimaha bulshada marka bulshada si heer qaran marka laga hadlayo darteed marka oo kaasada qofka marka uu iska diiwaan geliyo inta badan hadda dadka ay arkayeen waxaa loo dirayay shaqaskaasa xafiiska caymiska qaranka si uu siiyo kaalmada 3 bilood ugu horeyso kadibna intooda badan hadda ama qaarkood way ku laabteen bajaa already oo kaasooyinkooda dib ugu laabteen marka dadka si u kala fahmaan lacagta qofku u qaadan jiray
ayaa kaliya waxay ka imaanaysaa xafiiska caymiska qaranka laakiin qofka weli sidii ayuu maaragtay membership u dhiibaa oo uga mid yahay xubinnimadii oo kaasada ugu jiraa wax isbedel oo ku dhacay ma jirto waxaa laga yaabaa kaliya muddada uu ku qornaa meesha oo maaragtay oo kaasada in uusan meel aadi jirin ama shaqale uu raadsan jiray laakiin marka ay timaado xafiiska caymiska qaranka qofka waxaa waajib fuulay ah inuu meel aado si macnaha lacagta maarta oo farshaxanka saama caymiska qaranka u qaato marka taas un baa farqigaas yara soo dhaxgalay laakiin hadda sideeda waa hoosteeda ku socotaa oo kaasadana waxa ay hadda ay u shaqeysaa sidii u shaqeyn jirtay aad qodob kale oo aad isaga soo noqday jiro oo ah yani qofku hadii uusan xubin ka ahayn hore ugu ahayn xubin oo kale shaqo la'aan uu ku dhacdo tusaale ahaan qofka sidoo marka yani uu maadaama uu xubin hore ugu ahayn dhaqaalana uusan haysan qofka wadada uu raaci karo wadada marka inta badan sharci waxaa jira oo xadidaya qofka xubinnimadiisa waxaana qofka waajib ku ah inuu muddo hal sano ah oo soo shaqeeyay taa macnaheedu muddadaas halkaas sano soo shaqeeyay inuu bixinayo lacagta xubinnimada ah marka hadda maadaama dhacdooyin culus ay yimideen oo dhibaatooyinkii la xiriiray waxaan barnaamijka ahaa corona ayaa waxaa soo baxay sharciyo loogu fududeynayo dadka in ay maaragtay okaasada maaragtay waqti marka arrintood siyaasiya dhalisana waa ahayd runtii oo aad iyo aad looga doodayo oo weliba xitaa marka ugu horeyso qofka oo maaragtay oo shaqo la'aan noqdo inaan la weydiin muddada soo shaqeynaya xitaa qaarkood ku doodayeen oo xisbiga loo yaqaan xisbiga Vance Party ama xisbiga bidixda oo Jonas Qosaad oo madaxda ka yahay aad waxay ugu doodayeen in okaasada qofka loo fududeeyo si alla si loogu fududeyn karo laakiin hadda wada hadallada u dhaxeeya xafiiska caymiska qaranka xafiiska shaqada shaqaalaha iyo iskaashatooyinkan okaasada hab waxaa jira hadda oo la isla fahmay oo ah qofka in aanu meel cidla ku soo dhicin oo labada wiig ugu horeyso qofka hadduu xanuunsado oo crans loo yaqaan inuu caymiska qaranka ka codsan karo haddii qofka shaqada ay ka dhammaato laga diiwaan gelinayo oo kaasada isla markii u dirayso xafiiska caymiska qarankana uu asaga qarashka qabo oo qarashka siinayo marka wax hadda oo adag ma aha in la fahmi karo in la fahmi weyna aad iyo aad u maasanta Mukhtaar halkaas ayaan ku soo koobaynaa daawadayaal maanta barnaamijkeena markaasi ahaa toddobaadkii waxyaabaha ku cusub dalkan Sweden inta aan toddobaadkiisa kala kulmayno waa walaalkina Ala Asluub iyo Mukhtaar Haliyo idin leh sida iyo nabadgelyo